السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا هادين مهتدين. إله نغدق كوها ننصن تدكنا هنونية دمان تدكا سومالية دا برنامج كقفاعو كداوانا يا سومالي كنديان تي في كندا جيسان يا راديو بورمي CKMS 102.7 FM. برنامج كقفاعو مانتو أمالين خميسة bisha Juun 19 waxaan barnaamijka ku soo qaadanaynaa maanta waxa gabagaboobay shirkii baryahan ka socday caasimadda dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho. Shirkan waa kan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo ka waramaya. qof Soomaali aan kala xiranahay ma jiro. dadka goboshan ka maqan ee walaalaha lafsadooda waa isla hadalnaa. kala ma xirnin kalama go'nin colaad iyo isdil iyo ismagaciisay nagama dhaxayso dad waaweyn oo mas'uuliyiin oo muxtarimiin waaye waa isla hadalnaa meelana waa isaga ra'yanahay meelana waa kul ra'yi duwanahay gogoshaani midalan doorashada ra'yiga ka qabto iyo nimanka hadda naga maqalay saaxiibada maalmood markay shireenay baaqi soo saareen doorashada ra'yiga ka qabaan isku mid doorashada dadban inaan loo noqonin waa laga midaysan yahay oo doorashada dalku qof iyo cod inuu aado bas waxa dooda u baahan kayfiyada waay sidee sanadihii la soo dhaafay xilladii la soo dhaafay dib u eg marka dadka Soomaaliyeed intay isku tagaan ay tashadaan ay go'aan gaaraan intay doonaan bahal ekaadeen ama Soomaaliya ha u gaaraan ama deegaano Soomaaliya kamid ah ha u gaaraan go'aankaasi waa socdaa waa dhaqan gala bas halka ciladan qabno waxay tahay inaan sii socono oo aan ku sii darno oo aan ka sii reyno ayay ahayday meeshaasaan ku nagaanaa meeshaasaan joognaa laakiin gadaal uma noqono intaan soo aragnay 25 sano ee dowladda jamhuuriyadda saddexaad ee isnaad ay soo shaqeynaysay gadaal uma noqonin waayo dhib badan waa soo marnay waayo maxaan ku iraaday duruufo adkaan waa soo marnay kuwaan anagu sameynay iyo kuwa maxaan ku iraaday qadarta rabbi noogu timidba laakiin dib looma noqonaynin bas dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inay marka diirada saaraan sideen hore ugu soconaa war dib ku ka cabsanayo waa la burburaya waa la kala tagaya waa maxaan ku iraadaa lisdilaya waa laga dhacaya maya ma dhicin mana dhacayso insha Allah halka barnaamijka aad ka daawanaysaani waa Somali Canadian TV and Radio Borome waxaan ummadda Soomaaliyeed wadaagaya dowladnimadu waa social contract waa heshiis bulsho waxa in badan ay dadku sheegaan siyaasadda waxa la yiraahdo laba ayaa horumar uga baahan in laga gaaro mid waa waxa loogu yeero material development in isbitaal dhiso wadooyin la sameeyo waxyaalo fara badan oo baahiyaada oo dadku u baahan yahay iyo arintan madaxweynuhu ku dhawaaqay oo ah mar walba khilaafaadka soo noqnoqda in xal loo helo haddaba dadka barnaamijka meel walba ka daawanaya arintan iyadoo runtii ay ahayd mucaaradku inay ka soo qayb galaan kamaanay ka soo qayb galin Soomaaliduna garta way isku diidaa laakiin marka meel lagugu yeero oo invitation lagu siiyo sida islaamku ina amrayo inaad ka soo qayb gasho way gogasha la iskuma diido laakiin garta waa la isku diidaa waxa in badan dhaleecayn loo jeedinayaa mucaaridkii laakiin mucaaridkii laftoodii waxaanu ku wareysanay barnaamij aad maqli doontaan qaar ka mid ah mucaaridka oo hadlaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa ku salaamay Xaamud waan kaaga mahad celinayaa wareysigan iyo barnaamijka aad bulshada u hayso ee mar walbaba ah in xaaladaha taagan aad xog dheeraada ka siiso dhageystayaasha saa sheegtay shir ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka abaabulayay ama looga fadhiyay inuu ahaado shirkaasuna waxay ahayd shir loo dhan yahay oo caqabadaha taagan ee dalka ka jira ee dhabta ah looga wada xaajoodo laakiin shir wada tashi marnaba macno weyn oo uu leeyahay ma jirin wada tashi iyo wada xaajoodna farqi weyn baa u dhaxeeya waxay ahayd mucaaradka saameynta leh mucaaradka abaabulan mucaaradka wadanka
si weyn looga yaqaano iyo dadka kale ee maamul goboleedyada ee mas-uuliyiinta ah iyo dadka cuqaasha ah inay ka soo qayb galaan shir looga tashanayo loogana wada xaajoonayo caqabadaha waaweyn ee ku gudban xaaladda dalku maanta uu marayo. nasiib darro madaxweynuhu ma dhegeysan mucaaradka iyo siday rabeen inay wax u arkaan iyo dadka diidan qorshihiisa oo u arka inuu yahay qorshe khaldan wadankana aan waxba iska bedelaynin wixii laga cabanayay iyo wixii taagnaa ee lalahaa wadada dadka ku wada way khaldan tahay. laakiin madaxweynaha wuxuu ka doorbiday in asaga kooxdiisii iyo xisbi asaga uu samaystay iyo xisbiye hadda uu diwaan geliyo yiri urura la yiraahdayo hal qof iyo laba qofooda inuu inta meesha isugu keeno ay isu sabciyaan. taasuna waxaan u aragnaa inaysan waxba ka bedelaynin waaqicii dhabta ah ee dalka ka jiray. waxaan dadka la wadaagaya waxaad ogtihiin madaxweynaha xasan sheekh intii uu joogay waxyaalo fara badan buu qabtay. waxyaalaha uu qabtay in badan la sheego waxa ay tahay dayn cafinta, hubka cunaqabataynteeda, la dagaalanka shabaabka, shaqo abuur iyo batroolkii dalka loo soo saarayo. waxa kaloo iyaduna isweydiin leh iyaday halkaa taagan tahay oo madaxweynihii uu yahay mid dalkii soomaaliya dhammaanteed madaxweyne u ah, haddana shaqo bixintii markay noqoto safaaradihii, wasaaradihii, waxaan halkan idinku haya ood arkaysaan qabiilada sida loogu qaybiyey 4.5 hadday noqoto ambasador, hadday noqoto wasaarado. waxaa runtii mudan dalkan soomaaliya liidarka waxaa looga baahan yahay in badan sida kitaabka qur-aanka aynu ognahay ilaahayna inoo sheegay intana la wada yaqaano laba sifo in laga helo weeye. in badan oy dadku weliba aayadaha inxiraaf u daliishadaana ay qalad tahay. labada sifo waxaa ugu horeysa macrifo wax la yidhaho waa garasho. garashaduna ay tahay caqiidada marka horeba inuu yahay qofkani qof diin ilaahay garanaya, dabadeetna uu yahay nin aamina. waa labadaa sifo wey. nimanka kale leadershipka tareengareeyina waxay sheegaan 3 arrimood oo qaar ka mida kuwa ay yihiin oo ay tahay in uu yahay nin og followers fara badan oo daba socdo oo danaynaya nolosha dad ku jiro nolol ka fiican u saaraya iyo ammaanadaas. haddaba dadka ay dhegaysanaya waxa dalka soomaaliya aad arkaysaan waxa soo maray dad kala duwan, macaarid iyo macaabid. xasan sheekh maxamuud in badan waxyaalo fara badan uu qabtay, haddana dhanka kale waxaa garab socda corruption baahsan oo aad iyo aad ummadda oo dhan iyo cid walba oo documents cadcad la hayo oo aan qarsoonayn, oo haddaanu madaxweynuhu ka warhaynin ama prime ministerku laakiin wasaaradihii iyo meelihii shaqooyinka ka socda una baahan in wax laga qabto. haddii aan tusaale yaroo fiican idinku soo qaato habka qaybinta 4.5ka, madaxweynaha soomaaliya waxaa la ogyahay safiiro fara badan buu magacaabay. wuxuu magacaabay wasaarado fara badan. beesha dir la yidhaah waxaa la ogyahay qabiilo kala duwan inay ka soo jeedaan, reer qurana aanay ahayn. reer qura oo uu kuraastiisa madaxweynuhu danaynaya ayaynu odhan karnaa, aragtida sida loo dhigayo wey, ayaa waxay tahay inuu siiyey wasiirkii maaliyadda, wuxuu siiyey reer beesha dirka ka mid ah. isla reerkaa waxa uu siiyey golihii sare guddoomiyihiisii, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii buu siiyey, guddoomiyihii bangiga ayuu siiyey, guddoomiyihii bangiga dhexuu siiyey, garsoorkiisii buu siiyey, maaliyaddii buu siiyey. waxaana laynoo sheegaya ood arkaysaa waxaan wax u qaybinaynaa 4.5. aqliga ma gelaysaa markaa 4.5 baa reerkii dhannaa ee dir ee reer walba lahaa intaasoo bosishan. qaarkoodna waxa uu siiyey wasiir la odhan karo a iyo b miduu yahay garan maayo, iyo wasiir ku-xigeen la odhan karaba b, laakiin awoodahoogu ay yihiin iyo jananadii iyo agaasimayaashii ay maqan yihiin. marka waxaynu rabnaa inaynu ogaano madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya in badan waxqabadkiisu u muuqdaa oo waa la arkayaa. at the same time waxaa muuqata corruption fara badan oo baahsan oo dalkii haysta. waxaa rabaa ummadda barnaamijka daawanaysa soomaaliya waxaad ogtihiin waxaa la kabaa 70%, 30% waxay ka soo baxaan cashuuraha.
cashuuraha maalin dhaweyd waxaan arkayay waraaq ku qoran 65 laaluusha iska daa wax kale 65,000 waxaad ogtihiin gudoomiyaha ama aan odhan karaba wasiirka maaliyaddu dalka ma gaadhsiiyey bankiyadii horumar ma ka sameeyey waa maya waxaan ognahay oo had iyo jeer lagu soo celceliyaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya arrimo had iyo jeer la hadal qaado oo ay ugu horreyso deyn cafinta oo ay ku xigto federaalismka la qaatay iyo sharciga iyaba la soo hadal qaadaa waxaan ognahay deyn cafintu in badan waa interest wey bangiyada cafinta ee ugu horreeyo world bank aad ogtihiin waa interest dalalka in badan waxay nagu leynaa interest bay u badan yihiin waxaanan ognahay markii waxa laynaga cafiyey shuruudaa jiray shuruudaha waxayd in dadka lasoo hordhigo oo la tuso waxa kaloo u baahan dalku wuxuu qaatay federalism baa la yidhi wadkana federalism baa la qaatay maadaama ay maamuladii aad arkaysaan sida jubbaland iyo puntland laysku hayo constitutionkii xuquuqdii aan ku lahayn baan rabnaa iyo constitutionkii baldhanaa baan bedelayaa oy maanta puntland u baahan tahay in la tixgeliyo cabashada ay ka hadlayso jubbalandna ay ka hadlayso iyadoo si sharciga loo doortay maamul goboleedada haddana waxba kama jiraan leey marka what kind of a federalism soomaalidu qaadatay waxa kaloo la yaab leh soomaalidu arrimahan iminka aynu ka hadlayna federalismka waa is addoonsi bay ku socotaa waana waxaynaan ka bixi karin waxay noo muuqataa bokool waxa qaatay bay way muquunisay awood ma leh bari nugaal awdal waqooyi galbeed hiiraan hirshabeelle what kind of markaa federalism aan qaadanay dalkuna u baahan yahay in maanta la badbaadiyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliyana loo baahan yahay 4.5 haddii lagu qaybinayo ama dalka corruptionka baahanaya ka taagan shaqa abuur baa imanaya bari dhaweyd waxaan waraystay wasaaradda waxbarashada ayaa shaqaale qoratay kuwa senior baa la eriyey kuwii seniorka ahaa in la eriye ma dalka systemkiisu markaad u baahato eed aragto waxaad arkaysaa iminka arrintaa iyadaa maraykankaa sameeyey bari dhaweyd ninka trump la yidhaho lagu haystaa ilaa iminka ah markuu qabsaday shaqaalihii dowladoo dhan wax badan eriyo kuwa isagu wadwata uu keentay waxaasina waa dowlad xumo wey waxaad arkaysaa madaxweynaha iyo shaqaalaha la shaqeeya madaxweynihii ka horreeyey markuu tago in shaqaalihii hore o dhan la eryayo dadku bilaa camal uu noqonayo waana waxyaalaha u baahan in dalku laga badbaadiyo waxaana loo baahan yahay madaxweynaha hadda jira iyo kuwa kaleba in dalku u baahan yahay 18 gobol waa haddii aynu federalism rabno wey haddii aynu rabno xitaa stateskan iyo goboladan awoodda la siiyey maxaa markaa waa in la kala saaraa shaqada dowladda federaalka ah iyo gobolladii awooddoodii la kala saaro sharcigii lagu heshiiyo ummaddii soomaaliyeed la isku hayo oo midnimada lagala shaqeeyo waxaan leeyahay dadka barnaamijkan meel walba ka daawanaya wixii tala iyo tusaale ah waxaad noogu daawataan oo aad noogu duubi kartaan barta facebook aan ku leenahay iyo twitterka intaba waanigoo tafqatiraa xaamud suldaan cali cilmi barnaamijkan oo idinka imaanaya studigaanu ku leenahay magaalada Toronto